horta maantay waxaan ka sheekeysanaynaa ama caawa xilli ay inoo tahayba aan barnaamijkan aan wada joogno. Dunida waxaa mar walbaba jira qof kasta oo dunida dadaal haya ama hawl haya. Hawsha uu hayo laba qodob uu hayaa. Inuu asagoo adduun iyo aakhiraba wax ka faa'iido kama mara. Labo qofka sidoo kale inuu maaragtay ummadiisa iyo dalkiisa iyo dadka ay dan wadaagaha yihiin inay wax ka faa'iidaan kama mara. Marka anigu horta barnaamijkan aan soo gudbiyo sababta aan u soo gudbiyaa waxa weeye waa caqabada aan ka arkay dadka Soomaaliyeed ee macdan baarayaasha ah. Barnaamijkeena hadda waxaan ku soo dari doonaa sidoo kale xilliyada qaar inaan wareysto dadkii macdanta ka shaqeeyay caqabadihii ay ka soo mareen inay ii sharaxaan oo aan caqabadahaas isla qaadaa dhigno. Laftirkaygu marar baan waxaan ka soo sheekeyn doonaa aniga laftirkayga caqabado macdanta iga qabsaday. Markii la helo macdanta caqabadihii ka qabsaday iyo caqabadihii dadka ka qabsaday marka waxa halka ka soo baxaysa muhiimadda ay leedahay macdantu iyo culeysyada dad u maray. Taala adligeed qofkii caqabad la kulmaa wuxuu dareemi doonaa in caqabada la mida dad mari jiray. Sidoo kale waxaan iyaduna meesha ka marnayn mar walba oo aad kiiskan daraasayso inaad aqoon iyo qalab u baahan tahay. Aqoontu haddaysan qalab iyo garbo haysan iyo wuxuun dhaqaale ah iyo ama deegaan ku habboon aqoonta kaligeed waxba ma goyso. Qalabkuna hadduusan aqoon iyo deegaan ku habboon haysan waxba ma gooyo. Qalabka iyo aqoontu hadday isu yimaadaan balse aadan xoog aad ku shaqayso ama xirfad aad ummad kale ku adeegsan karto aadan lahayn aqoonta iyo xooluhu waxuma sheegaan. Marka waxa dhaqaaluhu ka dhalanaya marka koowaad waa aqoon, marka labaadna waa meel ku habboon. Sidoo kale waxa loo baahanayaa dhaqaale ku habboon, sidoo kale waxa loo baahanayaa dad ku habboon oo kula shaqeeya. Qofka kaligii hadduu waxa xiiseeyo haddii ay dhacdo caqabad ama uu mashquul yar kala dareemo haddii cid kala sheekaysata ama arrinkan xiiseysa ama raacda ama la socota hadduusan helin si kastoo waqtigii qofka waxaan u jecel yahay marka dambe hal mar uu caajiso meel kale inuu u jahaysto ayaa macquul ah oo uu isaga tago kiiskan. Laakiin qofku markuu koox iyo nidaam ka tirsan yahay systemka uu sii wadi karaa. taasina waa tan aan ku hiranayno barnaamijka marka aanu mar walba raacayno guidelines-ka. Anigu waxaan aaminsanaa mar hore macdanta aqoonteedu inay wax sahlan tahay. Laakiin wax sahlan iyo wax guda dhow midna maahan. Sidoo kale dhinaca kale markii laga fiiriyana haddaba wax aad u adag maahan. Laakiin waxay kaaga baahan tahay waqti bay kaaga baahan tahay. Inaad wuxuun aqoontaas kharash ku bixisid ayay u baahan tahay. Siyaabaha aan ogaaday waxaa ka mid ah shay kasta oo dunida yaalla inta kharashkaaga gelisid in la eg ayaad ka maalaysaa inta kharashkaaga. Sidoo kale inta aad waqtigaaga iyo kharashkaaga gelisid in la eg ayaad haddana ka maalaysaa. Sidoo kale inta aad waxa sahlatid ayaad aduguna dheeftiisu ay ka sahlanaanaysaa oo aysan dheeftiisu ku fududaanin. Inta aad waxa isku hawshid oo aad inaad sahlatid ka gudubtid ayaad waxa wax badan ka ogaanaysaa. Haddii marka aan isla fahanay wax walbaba inay dadaal u baahan yihiin dadaalka sidee loo gaari karaa. Haddeertaan diamond waa dhagax waana qaali. Sidoo kale quartz-kuna waa dhagax waana dhagax raqiis ah. haddana diamond iyo quartz-ku labaduba dhagax dhulka ka soo baxay weeye. Quartz-kuna meel kasta asagoo dhooban ayaan in badan qiimo badan u san caalamka joogin meelaha lagu iibsadaana ay iska xadidan yihiin.
oo hadda Soomaaliya si badan aan loogu iibsan diamondtana caalamka oo dhan baa raadinaya walba dhagax marka subscribe saara barnaamijka la gareeya share-tana ha ka ilaawina qaybtii diiwaangelintii ardayda iyo buuggii macdanta iyo buuggii dahabka iyo xogo kala badan waa diyaar iyo baaristii macdanta oo online ahaana shaqada aan haynaa way badan tahay lambarkeena waxaad ka helaysaa subscription-ka qaybta hoose ee videoga sharaxaadiisa